Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka labaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna hogaamiyihii ku-meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Jibriil Xaaji Cabdirashiid ayaa si rasmi ah u beeniyay eedeymihii dowladda Kenya la xiriirisay safarkiisii dhawaan uu ku tagay dalkaas isagoo ku tilmaamay kuwa been abuur ah oo aan sal iraatoona lahayn war-saxaafad u saaray Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka labaad dalka ayuu waxa uu ku sheegay inuusan weligiis ku lug yeelan wax falal ah oo wax u dhimaya amniga madax banaanida xasiloonida ama midnimada dhuleed ee Kenya ama Soomaaliya waxa uu xusay Ra'iisul Ku-xigeenka labaad dalka Jibriil Xaaji Cabdirashiid inuu mar walba waajibaadkiisa dawladda u gutay si waafaqsan sharciga isla markaana uu dhooray nabadda gobolka iyo deris wanaaga war-saxaafadeedka uu soo saaray Ra'iisul Ku-xigeenka labaad dalka ayaa waxa uu ku yiri waxaan la socdaa eedeymaha lagu faafinayo baraha bulshada ee la xiriira safarkeygii dhawaan aan ku tagay Jamhuuriyadda Kenya waxaan si buuxda u diidayaa eedeymahaas waa kuwa been abuur ah sal iraatoona lahayn isla markaana aan lagu taageerin wax cadeen ah marna kuma lug yeelan wax fal ah oo lagu wiiqayo amniga madax banaanida xasiloonida ama midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Kenya ama Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan mar walba u gutay waajibaadkayga dawladeed anigoo ixtiraam buuxa u haya sharciga nabadda gobolka iyo deris wanaaga war-saxaafadeedka ayuu Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka labaad dalka ku yiri Jamhuuriyadda Kenya waxa ay ka mid tahay saaxiibada ugu dhow uguna qiimaha badan Soomaaliya muddo dheer ayay dawladda iyo shacabka Kenya garab istaagayeen Soomaaliya xilliyo adag iyagoo martigeliyay qaxootiga Soomaaliyeed ka qayb qaatay nabadda iyo amniga gobolka taageeray gargaarka bani'aadanimo isla markaana horumariyay iskaashiga dhaqaale iyo dib u dhiska dawladnimada taageeradaas waxay mudan tahay aqoonsi iyo qadarin sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri shacabka Kenya iyo Soomaaliya waxay wadaagaan xiriir qoto dheer oo taariikheed dhaqan iyo qoys sidoo kale waxaa ka dhaxeeya ganacsi iyo iskaashi goboleed oo xoogan danaha labada dal waxay ku jiraan in la sii xoojiyo xiriirkaas soo jireenka ah anigoo ah Ra'iisul Ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa wali iga go'an tahay xoojinta iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya iskaashigaas waxaa ka mid ah amniga ganacsiga maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha isdhexgalka gobolka iyo xiriirka shacabka labada dal si loo gaaro faa'iido wada jir ah war-saxaafadeedka ayuu Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka labaad dalka Jibriil Cabdirashiid ku yiri waxaan ugu baaqayaa shacabka iyo warbaahinta inay ka fogaadaan faafinta war aan la xaqiijin waxaan mar kale cadeynayaa sida ay u go'an tahay nabadda dawladnimada dastuuriga ah iskaashiga gobolka iyo xiriir wax ku ool ah oo aan la leeyahay Jamhuuriyadda Kenya